iyadoo wali ay sii socdaan howlgallada bilicda loogu sameynayo magaalada Laascaanood oo ay dadaal ugu jiraan wasaaradda howlaha guud iyo dawladda hoose ee degmada Laascaanood iyadoo dadka shacabka ahna ay qaateen amarkii dhawaan ay ku shaacisay dawladdu in la baneeyo wadooyinka magaalada suuqaasi bilicda loogu sameeyo magaalada ilaa saako waa nala socoteen howlgalkan ku jiray kii nadiifinta wadnaha ayuu ahaa si fiican bay noogu socotay wax dhibaato kala maynaan kulmin waxaan aad ugu digayaa dadweynaha inta hadhay ee aan maanta digniinta siinay ilaa 2 ilaa 5 galabnimo inay ku dhamaystirtaan wixii hadhayna inaanu aroorta geli doono oo aanu gabagabayn doono oo suuqii sidaa nadiif ku noqon doono bilicda soo baxda way idin muuqataa dadweynahana waxaan u sheeganaa inaanu anagu ka talinano wanaaga magaalada Laascaanood tacadina aan sameeyay muddo 15 cishaana aanu shaqadayadii u joojinay si aan dadka dhibaato ugu iman maantana wax dhibaato khasaaro aan geysanay ma jiro dadkana sidaas aan ku wacyigelinaa inay wixii hadhay alaabta ka gurtaan aroortana waa dhamaystirana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynaha ganacsato shicib iyo cuqaasha salaadiinta saxaafadda ciidamada inta nagala hawl gashay aad baan ugu mahadnaqayaa waa mahadsan Cabdiqani Cali Faarax Cabdiqani Video CNA Somali TV magaalada Laascaanood